السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها كحران مامونا عافماد يقروح ولا لها شرفت بدن آدي آدم إذين سلام يا آدي آد بانا متقانا آن إذين كفر حسن هاي ما شاء الله تبارك الله ولا لها مر لبعض يوم مر صدحات بسود وهذا ما شاء الله تبارك الله هدي آد جنال كان أكو حران تهاي إن شاء الله سبسكرايب إسلام رهان تاسنا متقانا شير قري إلهي درتي سوسي شير قري أرمها أنك هاد لدونه ما أنت مركم حق إذن لو ذاقيا صدح قضب أيا ربا ما أنت إنان إذن لو ذاقو وآدي آد متقانا إن مهمنا وأنا قاقابا هدي المهاجا loo diro evaluation iskuulka loo diro oo ama la dhaho ilmaha wuxuu u baahan yahay special need maxaa u baahan tahay waalidka inaad samaysid waa qodobka koowaad qodobka labaad ee aan rabo maanta inaan idin la wadaago waxay tahay ilmaha leh sensoryga ilmaha leh oo ilmaha sida ama autismka ama ADHD-da ama any kind of disorder ilmaha haysto waxaa suurtagal ah iyadana inay sensory leeyihiin inaan iyadana aan kor istaago sensoryga oo ah dareenka dheeraadka ah ee ilmaha ku jiro marka ay waxyaabahaas ay leeyihiin ay calaamadaha ku garan karto waxa ku caawin karto qodobka saddexaad oo ah waxaan rabaa inaan idin la wadaago caruurta noocan ah ama caruurta yaryar mararka qaarkood waxaa jira dadka waaweynba waa lahaan karaan gluten inuu dhibo iyo siyaabaha marka ku garan karto cunugaaga inuu gluten uu dhibayo actually saddexdan qodob ee aan soo qaatay walaalo badan oo aad iyo aad u fara badan ayaa mataqaanaa saddexda qodobba su'aalo ahaan ii soo weydiiyey oo iga soo codsaday mataqaanaa in aan ooga jawaabo arrintaas qaabkaas ah laakiin mid walba waxay noqon kartaa cajal goonideeda u socota ayay noqon kartaa laakiin anigoo mataqaanaa waqtigiinana ilaalinayo waqtigeygana ilaalinayo maasha allah tabaaraka allah mid walbana insha allah biidni illaahi alkariim isagoo gooni u socoto waqtiyada kamid ah waa idin keeni doonaa maadaama aan xoogaa codsigiina aan la daahay maasha allah anigoo ka cudur daaranayo waqtigeyga aawadeed ayaa waxaan jeclaystay maanta inaan saddexdii qodobba aan idin kor istaago ilmaha marka evaluation iskuulka uu u dirayo waa qodobka koowaad oo su-aasha koowaad ee aan rabo inaan ka jawaabo ah evaluation markuu ku dhaho iskuulka ilmaha waan u dirayaa wax kale ma aha wuxuu fiirinayaa oo uu isu keenayaa dhaqanka ilmaha iskuulka uu kaga dhaqmo dhaqanka ilmaha guriga uu kaga dhaqmo xanuunada ama waxyaabaha uu ku dhashay ee isbitaalka ka yaalo cunuga rikoorkiisi iyo cunuga baahida markaas haysa ee uu u baahan yahay in laga caawiyo marka evaluation marka la leeyahay wax kale ma aha waa imtixaan laga qaadayo cunuga qaabku u dhaqmaayo qaabku u hadlaayo qaabku dadka ilmaha da'diisa u dhexgalayo qaabku wax u dhageysanayo qaabku wax u fahmayo intaba mataqaanaa in cunugii la fiiriyo markaasna la geeyo meel u qalanto horta kelmadda evaluation waa taas weeyaan macnaheeda iyo waxa laga wado assessment iyo evaluation labadaba mataqaanaa waa la dhihi karaa waa baaritaanka cunuga lagu sameynayo oo markaas lagu fariisinayo right place uu ku helo uu ku fariisto mararka qaarkood annaga Soomaali hadaan nahay saddexda arrimood ee ugu waaweyn halkaas qodob aan dhex taaganahay saddexda arrimood ee ugu waaweyn evaluationka naga qabsato waxay tahay mararka qaarkood waalidka Soomaaliyeed ma fahamsana waxa laga yaabaa waxyaabo fara badan oo dhaqanka uu ku kala duwan yahay dhaqanka wadanka aad joogtid iyo dhaqanka annaga aan leenahay Soomaali hadaan nahay uu ku kala duwan yahay in cunugaas meel khaldan lagu geeyo annaga dhaqanka aan leenahay laftirkeenana marka dhaqanka marka la dhaho ama culture marka la dhaho guri walba hooyo walba sibay dhaqankii guud ahaan kama hadlay wadan wada laha kama hadlay laakiin hooyo walba sibay ilmaheeda u korisaa ama guri walba hanaan baa ka jira hanaan kelmadaas ayaa ugu wanaagsan in aan raahdo guri walba hanaana ka jiro waxyaabaha waalidka qaarkood okay ka ah oo ilmaha inuu ku dhaqmo caadi u ah iyo waalidka qaar waxyaabo aan caadi ka ahayn marka labadaasba cunuga wuxuu la imaanayaa oo bulshada uu la soo dhexgalayaa waxyaabaha gurigooda okay ka ah ayuu wuxuu u maleynayaa cunuga markuu yar yahay inay meel walbo okay ka tahay marka taasna waa keeni kartaa cunugaaga in ay ku dhacdo misplace inay ku dhacdo oo isagoo markaas aan disorder lahayn dhaqankii iyo qaabkii isaga uu mataqaana u dhaqmayay inta la fahmi waayo in markaas la dhaho cunugan ama ADHD uu leeyahay dhaqdhaqaaq zaa'id uu leeyahay wajis annaga aan u naqaano qalqaali Soomaali annaga hadaan nahay aan u naqaano qalqaali aan u naqaano marka waa laga yaabaa cunugaas inuusan waxba lahayn laakiin ay tahay sida mataqaana ahaanta qaabka loo soo koriyay iyo akhlaaq
akhlaaqdiisa qaabka waalidka uu soo dhisay in ay hadhowto cunuga markuu sarinka iskuulka uu tago uu la qabsan waaye oo meel uusan markaas xaqiiqdii uusan xaq u lahayn uu fariisto qodobka labaad ee isla cunugaas ku imaan kara ayaa markaa waxay tahay in waalidkii informationka uu bixinayo iyo macalimadii informationka ay bixinayso ay kala duwan yihiin isla mar ahaantaasna ayadana uu meel khalad uu ku fariisto oo iskuulkii meel khalad cunugii laga fariisiyo qodobka saddexaad waxay tahay inay waalidkii dhakhtarkii iyo waa midda ugu fiican ee la rabo in la helo waalidka dhakhtarka iyo maxaa la dhahaa iskuulkaba inuu cunuga hal aragti uu ka wada leeyahay inta badan ilmaha halka aragti informationkaas laga wada gudbiyana waxay fariistaan oo ay helaan meel saxan in ay fariistaan oo markaas ay waxbarashadooda iyo dhaqankooda intaba mataqaanaa lagu toosiyo dhaqankooda wajis waxaan ka wadaa siduu u hadli lahaa siduu wax baran lahaa siduu bulshada u dhexgeli lahaa ayaan ka wadaa for schooling ama academically uu mataqaanaaye cunugaas sarinkaas u qalma uu u heli lahaa ما شاء الله تبارك الله وسوكر مري بإذن الله باري هدي أجعشين إن قضب كاس نطقنا بركة دام أنقصي سمايا ولي وحاسود حجلايا المها صوماليات متقنا اللغة الإنجليش كيكو عضقتها أنا جودن كان أنجوب USA أمريكان كا المها صوماليات جورجينا لقى لحد الله اللغة الصومالية لقى لحد الله مالها نقول شيء أيجان إنجليش كيكو هذلان مرة البوحة كل اللغة ده ما ما يسترنا وعي اللغة قفكم بحوهلي كراء اللغة دي ما يستر بكرتا مركا hooyada iyo aabaha ayeeyada iyo awoowaha luqadda ay ku hadlaan ayaa ku dhammaystiran oo luqadaada ah exactly marka ilmaha inta ku dhasha oo Englishka kaliya ku hadla mar walba ma noqonayo inuu yahay fluent ma noqon karo luqadaas 100% uma heli karo sababta uu ku hadlaa luqadda laakiin ma uu haysto ayeeyadiis iyo awowgiis mahmaahdi ahayd waxyaabihii dhaqanka ahaa historygii wadanka uu lahaa intaba cunuga wuxuu kaga jiraa lag ayuu kaga jiraa taasna waxay ku keeni kartaa ELL glasses ama ESL glasses in cunuga intuu yaryahay loo diro taas oo aan ahayn cunuga mataqaana inuu aqliyan uu wax ka maqan yahay uusan ahayn laakiin ay tahay luqadii qayb kamid ayaa ka maqan cunugaas English ma ku hadlaa uu ku hadlaa oo luqada wadanka ama German ama whatever meel alaaliye meeshu joogo luqadeeda uu ku hadlaa laakiin waxa loogu diray waxay tahay waalidkii dhalay ayuusan ka helaynin luqadii la midka ahayd oo kale ma uu heli karo marka taasa keentay inay mataqaana cunugaas ay luqadiisa adkaato asagana mataqaana waa qayb gooni ah oo u baahan meel publican jooga iga raali ahaada shanqar badana ila socoto marka taasna taasa keentay cunugan inuusan loo diro ELL-ka loo diro ma u fiican tahay mise ma u xun tahay mararka qaarkood ilmaha qaarkood waa u xun tahay oo waxay ugu xumaanaysaa cunugii waxa laga yaabaa xiisad kale oo wax fiican u baran lahaa in mataqaana cunugii hoos loo celiyay ama uu isu arko qof mataqaana aan luqadii ama wadankii aan la qabsan karin inuu isu arko macquul gal waa ama waqti uu kaga dhumo taas waa ugu xun tahay ma u fiican tahay waa u fiican tahay oo kulay marka uu weynaado oo mataqaana galaasyo badan uu soo qaato luqadiisa way dhismi doontaa wuuna ka bixi doonaa oo wuxuu noqon doonaa Afrikaan buu noqon doonaa marka hadii la dhaho cunugaaga wuxuu u baahan yahay ELL ama ESL ayuu u baahan yahay hadii lagu dhaho oo uu u baahan yahay please u daa wadanka joogtaba si uu cunugaas luqadiisa oo la qabsado adigoo markaas og oo cadeysanaya in maxaa lahaa Allahumma salli ala Muhammad in cunugan aadan adigu ahayn aniga hadda Soomaaliyan ahay luqada Ingiriiska waan ku hadlaa ardayduna way ku hadlaan luqada Ingiriiska laakiin waa ina ogaadaa ayeeyii awoowo luqadan kama aanan soo gaarin waa dad Soomaaliyan ahay oo luqadeenaas waa Soomaali waaye marka inta uu qofku u ka heli karo mahmaahda iyo qisada iyo sheekada iyo mataqaana waxbarashada uu ka heli karo waalidkiis uu ka heli karo iyo historyga wadanka uu leeyahay qofkii wadanka u dhashay baa mataqaana arintaas haysan kara marka hadii cunugaagu u baahan yahay please let it u dir taasna waa qodobkii saddexaad inay tahaan jeclahay اللهم صل على محمد قضبك أفراد مركا أو تي لبعض أو أول لابنيو أو محلها سنسريجا سؤالي سنسريجا مركا أنك جوابه آد يقرأ هذا ميل أو ببليك أهان جوجا شنقر بدن بقى إلى صعوبة لكن ولا سجاي محلها عجل كان إن دوبه أوديت أو آد وبهنا أما كقربيسنا إن أنك جرسي أوديت أنصاص متقنا عن أسميه وإذا كرها لي قلنا يعني دمانتين حوجا أنت شنقرت إلى صعوبة سنسريجا ayaa ku soo haray marka ilmaha sensoriga leh oo feelingkooda uu zaidka u yahay maxaa ku sameyn kartaa iyo qaabkee mataqaana ilmahaas waxay u baahan yihiin definitely ina u hesho
masaaj inaa u hesho ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in ay helaan sababtoo jirkooda oo dhan ee ilmaha yaryar wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa qaarna waxay ka cararaan oo waxaa dhibaayo taabashadii dadka ama jirka kale uu taabanayay ama ashyaada uu taabanayay ama dharka uu taabanayay ayaa dhibaayo marka maadaama cunugii 2 sano ama sanad iyo bar ama 2 sano uu jiro maxaa ku garan kartaa cunugaaga inuu sansari leeyahay 3 waxyaabood ayaa ku garan kartaa cunugaaga inuu sansari leeyahay mid waxaa ka mid ah cunuga inuu routine intuu samaysto marka sansarigaas uu ku bato inuu wareegaysto sidii irbadii oo kaleeto marka adiga waxaa u malaynaysaa inuu cayaarayo ama inuu ku dhibaayo ama inuu boodboodayo laakiin waxaa laga yaabaa kursiga uu ku fariisanayo maradeeda inay dhibayso marada uu mataqaanaa xiran yahay shaatiga uu xiran yahay kalarkiisa ba meesha yar ee ku dhagan inay dhibayso wax markaas waxaa jira cunugan dhibaayo oo ku keenaya cararka marka cararkii si uu feelingkii isaga uu dareemayo korkiisa uu ka dareemayay si uu u fujiyo aawadeed ayaa wuxuu samaynayaa marka cunugii inuu wareegaysto ama mataqaanaa routine soo noqnoqdo inuu sameeyo oo also waxay kaloo samayn karaan in ay isku xoqaan qofka oo ruuxa wajigiisa mataqaanaa inay wajigaaga ku xoqaan gacanta uu ku xoqo oo uu helo cunugaas mataqaanaa in uu helo in uu meelo uu taaban karo wajigiisa iyo gacmihiisa iyo kamid ah ama asaga nafsadiisa inuu mataqaanaa uu taabasho fara badan wajigiisa gacmihiisa inuu sameeyo ayaa iyadana mataqaanaa suurtagal ah marka waxyaabaha u samayn karta ayaa waxaa kamid ah inaa u hesho in aad u hesho masaaj inaad u samayso si mataqaanaa neerfihiisaan ay u degaan oo kaleeto farahaaga inta hore intaa qaado saas oo kaleeto mataqaanaa in aad ugu masaajayso farahaaga qaadaysaa farihii waa kuwaasaa marka neerfihiisii oo dhan marka cunugaas u kacayo inaa saas camal ah asagii aa ugu masaajayso korkiisa asaas mataqaanaa aa ugu taabato ayaa iyadana mataqaanaa suurtagal ah laakiin asaga uu u baahan yahay adiga ma dareemaysid in uu masaajkii toos u wada helo oo mataqaanaa korkiisii oo dhan markaas ooyalada loogu talagalay masaajka inaa mariso oo cunugaas mataqaanaa si toosa adigoon aad u riixaynin oo uma baahna asaga deep pressure massage uma baahna oo wax xanuunaya muruqyada ma aha laakiin wuxuu u baahan yahay skinkan kore ayuu u baahan yahay in uu ka helo maxaa la yiraahdaa taabashada aad taabanayso oo mataqaanaa ka yareynaya markaas isaga sansariga uu u baahnaa uu ku helayo ayaa mataqaanaa u samayn kartaa also waxaa kaleeto oo aad u samayn kartaa oo asaga mataqaanaa sansarigiisii ka dhibaayo in uu mataqaanaa haddii taabashada uu ku yahay oo mar walba uu rabo inuu wax qaado gacmihiisa aysan joogsanaynin waxaa jirto kubado yaryar oo plastic ka samaysan oo isku soo noqnoqda ayaa jirto insha Allah haddii aan helo sawirkooda haddii aan helo waa idin soo saari doonaa oo also iyadaba haddaan meel aan tago meelaha lagu iibiyo oo kaleeto waa intaan soo qaadaan idin tusi doonaa qaabka ay tahay marka kubado yaryar oo isku soo noqonayo oo cunugii gacantii mataqaanaa maanta dhan uu ku mashquulayo maskaxdii ahaana markaas way mashquulaysaa taabashadii badnayd weliba markay aadka u yaryar yihiin way usii baahan yihiin kuwa ilmaha wax afka gashanaya oo wax walba ay qaadaan afka gelinayo si aysan mataqaanaa ashyaadii aysan afka u gashanin in mataqaanaa ay helaan shaygaas ay qabanayaan oo mar walba mataqaanaa shaygii ay maxaa lahaa kan ay gacanta saas ugu bajaqanayaan ama sida blade oo kaleeto u samaysan oo blade xataa way anfacdaa oo ciyaarta ay ku ciyaarayaan ay kala jijiidayaan mataqaanaa wax weyn ee mataqaanaa ilmaha noocaas ah ay u gashaa اللهم صل على محمد قضبكي صدحات لا صدح قضب وين اكزامبل لك دخ جرا اي ايد maanta waxaan idin ballan qaaday qodobkii saddexaad muxuu ahaa gluten yes or no maxaa la dhaqaatiirta qaar waxay qabaan in ilmaha mataqaanaa ADHD-ga autism kale waxyaabaha glutenka laga ilaaliyo gluten muxuu yahay marka glutenka wuxuu yahay waxyaabaha mataqaanaa cajiinka ka samaysan ama ka samaysan maxaa la dhahaa اللهم صل على محمد qamadiga ka samaysan oo kale dad waaweyn oo ay dhibtana way jirtaa marka waxyaabahaas tricky way meelo badan ay ku imaadaan waxa buskudyada ay soo dhexgali karaan cerealada ay soo dhexgali karaan anywhere oo mataqaanaa ama baarleyda ay ku jirto ama waxyaabaha qamadiga uu ku jiro sareenka uu ku jiro ayuu mataqaanaa u soo dhexgali karaa ama bur ahaan u samaysa ama shay ku imaaday sida buskudka oo kaleeto cerealka oo kaleeto waxyaabo fara badan oo laga sameeyo oo cuntada kale u soo dhexgalay marka maxaa ku garan kartaa cunugaas marka uu cuno wuxuu lahaanayaa calool majiir ayuu lahaanayaa ama aad buu u dhibsanayaa
ama wuu fuuraya oo caloosha soo fuurayso dadka waaweyn xataa by the way ee qaaraale marka inaa u badiso waxyaabaha sida fruitka iyo vegetable-ka iyo cuntooyinka aysan ku jirin isku day marka test also waxa ka ilaalinaysaana waxay tahay oo in yar uga qaata ilmaha hadii uu super active u yahay in mataqaana ku sameeyso sugar intake ina aad uga ilaaliso sokor badan cunugaas uusan qaadanin uu helo maxaa lahaa inta uu yar yahay waxyaabo kale oo caafimaadkiisa kor u dhigaya laakiin sokorta uu ka ilaaliso باذن الله baari sababtoo sokorta waxa u sameynaysaa hyper activity fara badan ay u sameynaysaa باذن الله baari hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo ajalkan maanta waan idin soo boobsiyay waa idin ka raali gelinaya باذن الله baari laakiin qodob ina idin ku kala qaado marka aan waqti aan hayo ina kurbada markaas waalidkaas haysta ina idin la qaybsado awadin ayaan mataqaanaa sidaan quick aan ugu soo idin ku soo duubay ma sha Allah tabarakallah Ilaahay waxa idin ka rajeynaa wax walba inuu Ilaahay nala garab galo mid walbana qodob walbana gooni ayaa mataqaanaa intaan u sii istaagno ayaan mataqaanaa aan oga sii hadli doona isagoo faahfaahsan dhamaantiin waxaan idin leeyahay hooyo walba oo kurbaysan kubada Allah ka qaado dhamaantiin waxaan idin ka tagayaa caafimaad iyo qurux assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh